waxaan gabayga deelkiyo labta iyo doorka uga qaaday dadka waxaan ugaysiinayaa dawguusu yahay soomaaliday tahay wanaag idinka dorta soomaaliday daya wanaag idinka doortooye dohda bari dareeriga badiyo saylac dariifkeeda dusha koonfureediyo ilaa webiga daaciisa degmadeena oo idil haddii aan dayay abwaabteeda niman duubiyadu nafa noqon deelka lawaaye degmadeena oo idil haddaan dayay abwaabteeda niman duubiyadu nafa noqon deel waaye duniyo dacwa waxaa qaribay degeeriye duniyo sugan ugu dhige waadix dhagaxeede anuba damqanaye laguma daboolane dadkan la hadlaya baan lahayn duxiyo imamane bal inay dabobtahay caqliga dooni laga saaray wixii hore soo daajadaynay dhegaysa dadanigo kugu baahday baan cidi dabiibayne dulkii inkaar qaba jinbaadaasa dow sugoe dab markuu baktiyo meel kala dabab ka qeeqaaye dab markuu baktiyo meel kala dabab ka qeeqaaye waagii dilaaqa naxdimo dihin la sheeganaye anunbaa samqanaye dhaguma dawramane dadkaan la hadlayaabaan lahayn duxiyo imamane duniyo asba wan ugu dhigaye waadix dhagaxeede bal inay dabobtahay caqliga dooniye laga saaray wixii hore usoo daajaday bay dhegaysa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkani waa idaacadda SPM Somali Public Media oo idin soo gudbinaysa maanta barnaamij gaar ah barnaamijka waxaa inoogu marti ah mudane ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxa aanu ka codsanay maanta inuu marti inoogu noqdo barnaamijkan waa uu naga aqbalay waa ku mahadsan yahay waxaanu ka wareysan doonaa dhowr qodob balse su'aalaha inta aan u gudbin mudane Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxa aanu ka codsanaynaa marka hore inuu noo faahfaahiyo kadib Soomaalidii marka ay burburtay wadankiina lagu kala cararay Soomaalidii waxa ay u kala firxatay dunida dacaladeeda dareenka uu ka qabo kala firxashada Soomaalida dunida dacaladeeda kadib marka ay u kala carartay waxa ay qabsadeen iyo sida ay ula dhaqmeen dadkii ay ku soo biireen iyo dalalka ajnabiga ah ee qurbaha ay ku noqdeenba waa kan mudane Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ku soo dhaw barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantihiin dhalinyaradiina tan barnaamijka wada iyo xasuumada aad iga yarteen meesha inaan galabta xoogaa hadalaa idin kala qaybsado hawsha aad wadaan oo ku saabsan dadkan Soomaalida halka meel joogaanba aad baan u qiimeynayaa su'aashaada haddaan toos mooyaan waqtigu iska yariya waa ogahay su'aashan haddaan ka jawaabo waa run dad Soomaaliya markii burburkii dowladda ugu dambeysay oo Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiste oo ka ahaa madaxda markii ay meesha ka baxday 1991 bilowgiisii dagaal sokeeyaa qarxaday dad badan baa ka qaxay wadankii wadanada dibadda u kala qararay in badan oo dadkaas dibadaha Yurubka iyo dhulkan qarbiga bay soo aadeen waxaa kamid ah dhulkan hadda aynu joogno America hadda United States of America ayaa kamid ah dalka loo soo qaxayo dad badan oo joogo dadkii ayaga sidaan ka warqabo America iyo wadanadii kale ay tageenba waa la soo dhaweeyay aad baa wax loola qabtay waa la tixgeliyay aqbalaadooda hore oo la aqbalay xil baa la iska saaray in haday yimaadaan wax la tarayo
boorbuka iyo wixii ka dhacay laga baskoysiinayo amni inay helayaan ayaga iyo caruurtooda iyo waxay wataan tiina waa dhabowday oo waa ay kaxeeyeen dadka Soomaalida sidaan kan warqabo meelay joogaanba waa dadaaleen inay muxuu ahaa wadanada soo dhaweeyay inay muxuu ahaa si nidaamsan oo qurux badan inay ula dhaqmaan meel kasta dabcan hadduu dadku badan yahay la waayi maayo qof iyo laba iyo saddex iyo simbireer xida waxoogaa si wax u noqdo la waayi maayo waa iska caadi laakiin guud ahaantaas dadka Soomaalida aad iyo aad bay muxuu ahaa u tixgeliyeen oo abaalgud u sameeyeen wadanadaas laga soo dhaweeyay muxuu qaynuunkii bay ilaaliyeen wadankii bay la qabsadeen muxuu ahaa shaqooyinkii bay bilaabeen wixii dhalinyaraayoo tacliin qaadan karay tacliintii bay galeen oo loo sahlay ayay galeen muxuu ahaa wixii bixmishtari iyo awal wax ka haystay ama xoogaa yar waxbay isku dardarsadeen sidaan ka warqabo weliba Minnesota u xoog badan sidaan u malaynayo statekan aan joogno business iyo meel walbaba waxaa laga furtay inay bixmishtariyiin isku filaadaan intay cayr iyo gacanta taagi lahaayeen marka meel fiican baa la gaaray dadka wixii diintooda iyo waxaas yaqiinay oo culumadii iyo waxaas waajibkooda iyaguna qaadeen inay diintii inkastoo wadanka la yimid oo muxuu diimo badan baa ka jira diinna lama faragelinayo haddii dadku qaynuunka wadanka ilaaliyo diinta qof walba diintu haystaba lagu tixgelinayaa oo aan lagu faragelinaynin marka midaas iyadoo muxuu laga faa'iideysanayo culumadii Soomaalida iyadoo dadka soo qaxay oo halka ka yimid kamid ah waxay xil iska saareen iyaguna dadkii Soomaalida diintii sida ay awal u haysan jireen inay iyaguna inay u wataan masaajida markii hore la ijaaray meelo masaajid noqda ka baxdeena markii ay suuragal noqotay masaajid badan baa la gaday oo wax laga bixiyay marka dadaal xoog leh oo qurux badan ayaa la sameeyay marka aniga aragtidayda muxuu ahaa dadka Soomaalida Yurubna xataa sidoo kale qiyaasaya inay tahay waxaan qiyaasayaa dadka Soomaalida inkastoo ay soo qaxeen oo wali muxuu ahaa jiilkii ugu horeeyay oo wadan ajaanib yimid ay yihiin waxyaalo badan iska jirjiraan oo wali laakiin dadaal weyn bay sameeyeen dareenkayguna waxa weeye wadanada martigeliyay muxuu masaluugsana dadka Soomaalida ah siday ku dhaqmayaan iyo siday wadaan aad iyo aad aniguna mabsuud baan ku ay wixii intaan arkay ama maqashiisanahay dadka Soomaalida ah sidoo muxuu ahaa sharciga uu ilaalinayo wax u qabsanayo intuu dawladda gacanta u taagan lahaa muxuu ahaa dad yar way iska jiraan wali muxuu odayaal iyo habriye dad fila waa jiraanin oo wali muxuu ahaa aan dawladda inay shaqaysan karinin oo dawladda gacanta loo laakiin sida loo badan yahay dadka Soomaalida ayaga isku filan oo waliba cashuurna bixiyo wax soo saara marka aad iyo aad baan ugu heesanay waa amaan bay mudayin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mudane ra'iisul wasaarihi labaad kadib xorriyadda markii la qaatay ee dalka Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Xaaji Xuseen